السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ka soo diyaarinay Soomaalida ku dhibaataysan dalka Greega. barnaamijkaas oo aan ugu magac darnay Soomaalida Greega iyo siday u nool yihiin xambaarsan fariin muhiim ah oo muujinaysa dhibaatooyinka ay kala kulmaan marka ay u soo tahriibaan dalka Greega iyo sida ay noloshoodu tahay marka ay soo gaaraan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greega. waxaana barnaamijkan Abdullaahi Iimaan iyo wariye Maxamed Cadaawe Aadan. Soomaalidii ugu horeysay ee soo gaadha dalka Greega gaar ahaan magaalada Athens ee 1950-meeyadii waxayna ahaayeen siimaano ama badmaaxyo. qaar ka mid ah ayaa weli degan dalka Greega, qaarna way ka guureen oo waxay u guureen wadamada kale ee Yurub iyo qaar u guuray Afrika intaba. tahriibayaasha Soomaaliyeed ee soo mara dalka Greega waxay soo bilowdeen dhammaadkii 90-meeyadii waxayna ka soo bilaabeen dalka Turkiga. waxay ka soo galaan Soomaalidu jasiirado ka mid ah Mytilene, Samos, Laros iyo qaar kale oo waa arrin naxdin leh oo aad u adag inaad ka hadasho oo aad ka faallooto marxaladaha ay soo maraan Soomaalida tahriibka ku timaada dalka Greega iyagoo soo maro marxalado ay dhacday in dad badan ay naftooda ku waayaan kuna dhinteen badda iyo webiga ku teesan xuduudda Greega uu la wadaago dalka Turkiga. marka ay soo tallaabaan dadka muhaajiriinta ee Soomaalidu ay ka mid tahay xadka waxay soo gaaraan xerooyin gudaha Greega oo ay ku sugan yihiin ciidamo boolis ah muddo 4 maalmood ayaa magaalada Athens waana marka laga soo qaado faro iyagoo la soo siiyo warqado ku cad in muddo 5 maalmood gudahooda ay dalka uga baxaan. guri kasta waxaa ku nool tiradii loogu talagalay in ka badan ugu yaraan 20 ruux ayaa waxay ku nool yihiin 2 aqal ayaaba ku nool meelaha qaarna waxaana jira qaar ayna haysan lacag duruuftan ay ku khasabto inay ku noolaadaan halkaas iyo dhibaatooyin iyo jirdil ay kala kulmaan sida uu noo sheegay Cabdo isagu ka mid ah qoyskiisa magaalada warartay dhaawacyaana la ku gaarsiiyay meeshaas dhaawacaas oo hadda ugu yaala dhabarka oo tuurana la ku dhuftay inta duudka meeshaas tuuray waaye infante Fartuun Dalmar waa hooyo 2 caruur ah ku dhashay magaalada Athens ee dalka Greega. waxay maalin walba iyada iyo caruurteeda ka soo cunteeyaan meelo aan nolosha ku habboonayn sida kaniisadda. waxaan weydiiyey bal sida ay ku maareysay nolosheeda iyo in ay heshay wixii ay ku taamaysay markii ay soo gaartay iyo haddii ay jeceshahay in ay dib ugu laabato dalkeedii. wallaahi waddankayga hooya ii fiicnaa anoo iska jooga xabadda أنا مواد ما لهاي أما يعني ونولا لهاي لكن هذا درتان بهدل ما لو قلنا هاي يعني سبي هذه الماء وسديل المنيسين قاري قادنا كنيسة تيجي وحق سوء عنيسة. halkan waa xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega. marka aad ka soo tagto magaalooyinka kala duwan ee Turkiga saacado sidaas u badnaan ayay kugu qaadanaysaa inaad soo gaarto xuduudda Greega. laakiin waxaa jira halis fara badan maadaama dadka soo tahriiba ay soo raacaan doomo yaryar iyagoo ku soo raaca ku dhawaad 30 ruux ama ba in ka badan waxaana laga soo qaato lacago ku dhow $1,500 Mareykanka. kuwa soo mara webiga ama badda halista khatarta badan waxay tahay in doomuhu ay la degaan dadka bacdama aysan tayaysnayn doomuhu ayna ku soo raacaan tiradii loogu talagalay in ka badan. muuqaalkan waa meydka muhaajiriin isugu jirta Soomaali iyo ajaanib kale oo meydadkooda booliiska Greega ay ka soo saarayaan biyaha webiga. Yorgos Salamangos oo ah madaxa jasiiradda Aristioda oo ah halka ay Soomaalida ka soo dhacaan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay sida dadkan muhaajiriinta ah ama tahriibayaasha ah ay ugu laadaan biyaha u dhaxeeya Greega iyo Turkiga. Το διάστημα η χώρα μας δέχεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα λαθρομετανάστευσης. dhawaan waddankan waxaa soo gaaray muujadihii ugu waaweynaa ee dadka muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo gala dalkan Greega. dadkan waxay ka soo gudbaan Turkiga iyagoo soo raaca doomo balaastig ka samaysan oo aan tayaysnayn. muqallasiinta ee soo tahriibiya dadkan uma aabiyeelaan caruurta, haweenka iyo dadka waayeelada ah. dhammaantood hal meel ayay ku soo wada ururiyaan. tanina waa natiijada aad goobjoogga u tihiin ee ka dhalatay arrintaasi. maanta waxaa ku dhintay
ilaa iyo 3 qof oo iyagoo dooni saarnaa badda ku qurbaxay. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εγώ νομάρικ σε αυτό. Daflas Volias oo isaguna ah duqa jasiiradda Lesvos wuxuu yiri muddadii aan ku sugnaa halkan ma aan arkin dadka muhaajiriinta iyagoo isku dhiibaya halkan waayo badankood way ka sii gudbaan waxayna sii aadan qaaradaha kale ee Yurub sida Netherland, UK, France, Germany, Australia iyo meelo kale. dadkanina waxay la kulmaan dhibaatooyin adag marka ay halkan ay soo gaaraan iyo waliba marka ay gudbaan waayo ma helaan xuquuqda ay u baahnaayeen haddii ay ahaan lahayd dalka Greega iyo waliba Yurubta kale. inkastoo hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan laanta qaxootiga ay ku sugan dalka Greega ay u taagan tahay dadka qaxootiga ah haddana sharci u gaar ah ayaa u degsan qaaradda Yurub taasoo ah in wadanka ugu horeeya ee dadka qaxootiga ah ay soo gaaraan lagu soo dhaweeyo ama lagu qaabilo balse dawladda Greega arrimahaas waxba kama qaban sababtoo ah waxaa jira Soomaali fara badan oo inta u sii gudbay wadamada kale ee Yurub marka ay isdhiibeen ku soo baxeen farihii Greega looga qaaday dibna loo soo celiyay kuwaas oo ilaa iyo iminka sheeganaya in aan waxba loo qaban waa kuwan qaar ka mid ah oo guryahooda ku wareysanay magacaygu waa Cabdiasiis Maxamed Cabdullaahi waxaan maanta shaashad u soo fadhiistay inaan ka hadlo duruufaha iyo dhibaatooyinka igu qabsaday Greega waxaan soo galay wadankan bishii 11aad 2006 waxaan ka baxay 2008 bishii 11aad anoo si toos ah u joogo wadankan 2 sano toos ah waxa la kulmay duruufo aad u kala gedisan iyadoo anoo ka sii baxay jasiirad mar lagu qabtay oo aan 9 bilood xabsi soo maray kadibna aan haddana ka baxay waxaan soo maray dhowr wadan oo Yurub ah iyadoo isla mar ahaantaa la igu soo celiyay Greega barnaamijkii oo ahaa Dublin waxa la igu soo celiyay markii ugu dambeysay dowladda Norway waxaan ku noolaa 9 bilood duruufaha iyo dhibaatooyinka ugu qabsaday Greega waxaan ka sheekeynayaa marka koowaad jirdil baa la kulmay oo sida hadda jirkayga gacantayda ka muuqato inuu igu gaaray xabsiga Greega dhexdiisa waxa kaloo ka dhibaato ugu soo gaartay shaqo darrada wadanka ka jirto waxa kaloo hadda xukun igu dhacay oo igu qabtay magaalo la yiraahdo Khania oo igu xukumay 9 bilood xabsi ah oo xabsigaas ku dhameystay xabsiga ugu weyn Kordalo kadibna aan ka baxay dhibaatada Greega ka jirto haddii aan dib u fiirno ninba ka daran yahay haweenka ayaa ugu sii daran walaga sii kala nugul yahay dawladda Greega sidiisa wax dacma ama gargaar oo u qabto dadka Soomaaliyeed habeenka ma jiraan Xaashi Axmed waxaan ahay Soomaalida ku sugan wadanka Greega waxaan soo galay 2007 waan ka baxay waxaan tagay wadanka Britania waa la igu soo celiyay haddana waan ka baxay sanad baan joogay waxaan galay wadanka Norway haddana waa la igu soo celiyay iminka waxa ay qabteen ma jirto horena waxba igu qaa iminka waxba ay qaban kaadun balaysiinaya kaadkani waxa guri meel aan seexdalna siiyo waxaan cuna la ima siiyo magaalada waa taas iska celi dhibaatadaasaan qabaa sabab lagu soo celiyay maxay tahay waxa la soo celiyay waxa lagu leeyahay markii hore wadanka Greega faraagay ka qaateen marka wadan waliba wuxuu leeyahay wadanka Greega ayaa wadankaaga waxaan doonaya wadankayga dhibaato ka dhacaysa ayaan jecelahay in la celiyo way diideen wadan kasta way diideen in maca Soomaaliya celiyo